Assalaamu calaykum asxaabta ku xiran jil xirfad kusoo dhawaada muuqaal cusub kaasoo aan kaga hadli doono sida loo samaysto Pocket Option. Muuqaalkan oo ah muuqaal dhammaystiran. Haddaba haddii aad nagu cusubtahay nagu soo bir, haddii aad hore noola joogtiin muuqaalka like saar si uu gaadho asxaab badan. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Shirkadda Pocket Option waxa ay si maalinlaha qaybta Gmail-ka aad ku samaysatay kuula soo wadaagtaa xog cusub badan inay jiraan website-yo scam ah oo u eg magaca website-ka Pocket Option. Haddaba muuqaalkan waxa aad ku baran doontaa sidii loo samaystaa Pocket Option, sidee loo samaystaa Ether app, sidee loo samaystaa Perfect Money iyo sidee lacag loogu shubtaa Perfect Money, sidee lacag loogala baxaa Perfect Money, sidee lacag loogu shubtaa Pocket Option iyo sidee lacag loogala baxaa Pocket Option. Haddaba muuqaalkan haddii aad dhamaysato xogtaas oo dhan ayaad ka faa'iidi doontaa insha Allah. haddaba markaad doonayso inaad samaysato Pocket Option waxaad raacaysaa linkiga yaala description-ka. qoraaladan halkan ayaad horta fahmaysaa. marka hore linkiga raac ayaa halkan ku qoran, marka linkigaas ayaad raacaysaa. kadib markaad raacdo linkigaas ayaad iska diiwaangelinaysaa. halkan waxaa kaloo yaala Telegram-kayga guud ee channel-kayga, halkaas oo aan soo gelino signalo. halkan kale waxaa isaguna yaala website-kayga xirfad city oo isagana aad booqan karto waxna aad ka soo baran karto. waxaa halkan kale isagana yaala lambar haddii aad doonayso inaad oo caqabadi kugu timaado aad nagala soo xiriirto. waxaa kale oo jira Telegram weyn oo aanu kusoo gudbino koorasyada ku saabsan trade-ka, isagana kan dhexdiisa ayaad ka sii helaysaa. markaa haddaba waxaan doonaynaa imika inaan iska diiwaangelino Pocket Option. waxaa jira website fake ah oo hadhow la isku gelinaya haddii aanad linkigan raacin. waa linkigan waxa weeye linkiga dhabta ama linkiga saxda ee website-ka. marka linkigan ayaad ku dhufanaysaa. linkigan marka aad ku furto sidan oo kale ayuu kugu soo baxaya. halkan ayaad leedahay star ayaad odhanaysaa, kadib continue ayaad sii leedahay, mar kale continue ayaad haddana sii leedahay, kadib haddana halkan ayaad continue sii leedahay, haddana continue ayaad mar kale sii leedahay, halkan aad haddana continue sii leedahay, haddana continue kale ayaad sii leedahay. kadib markuu soo saaro halka yar baa iskaga xidhaysaa. kadib marka hadda website-kii Pocket Option ama kii runta ahaa ayaan ku jirnaa. xaggan sare waxaad ku arkaysaa 50,000 oo deemo ah. marka waxaan hadda bilaabayaa inaan samaysto. waxaan tegayaa foomka marka aan ku dhufto waxaan kasii tegayaa halkan ay registration ku qoran tahay. kadib marka registration ku qoro wax kale ma sameynayo. halkan waxaan gelin karaa ama Gmail aan leeyahay, kadibna password baan u samaysanayaa hadhow si aan application haddii aan la soo dego aan u gashado. marka anigu hadda waan iska dhaafayaa, qaybtan ayaan doonayaa inaan ku samaysto. xaggan Gmail-ka ayaan tegayaa, marka Gmail-yada mid kamid ah ayaan ku furayaa. Gmail-ka mid kamid ah ayaan ku furay, marka continue ayaan si leeyahay. continue markaan idhaahdo sidaas ayuu iigu samaysan yahay oo aan qaybtii Gmail-ka uga soo gudbay. marka haddana waxaan doonayaa inaan foomkii guud ku noqdo. waxaan tegayaa halkan profile-ka ay ku qornayd, kadibna profile-kan kale ayaan sii tegayaa. oo arkaysaan marka profile-kan labaad ayaan haddana mar labaad kusii dhufanayaa. kadib marka aan kusii dhufto waxaa ii soo baxaya foomkan. marka hadda Gmail-ka aan kusoo sameeyey ayaa leeyahay confirm your email, ayaan email-kaaga soo xaqiiji inuu yahay mid shaqaynaya oo markaa waa inuu noqdo mid shaqaynaya. marka Gmail-kan ayaan u dirayaa, halkaas yar ee resend ay ku qoran tahay ayaan taabanayaa. waxaa kaloo Pocket Option lagu soo kordhiyey qaybta Islamic account-ka. halkan yar ayaad furanaysaa marka aad u baahan tahay inaad Islamic ka dhigato. hadda saas ayuu noogu furan yahay. halkaas sare account-keena waxa ka soo baxday xalaal. account-kan waa xalaal, macnaha lacagta aad ku shaqaysataa waa xalaal ayay noqonaysaa marka aad barato trade-kii iyo qaabkii loo sameynayay trade-ada. marka halkaa imika ayaan taabanayaa resend ay ku qoran tahay. marka ugu horeysa waa in horta magacayga aan ku qoro. halkan magaca iigu qoran baasaboorka ayaan ku qorayaa, Maxamed ayaa iigu qoran, halkanna tig ayaan leeyahay. kadib taas ayaan u dhameystiray. kadib halkan ayaan haddana ku qorayaa magaca labaad oo ah magaca Axmed ayaa iigu qoran. marka halkan ayaan ku dhufanayaa, tig ayaan iyadana leeyahay. marka waxaa laga rabaa inaan halka yar resend idhaa oo aan u diro Gmail-kaygii. Gmail-ka markaa u diro resend saa ugu diro Gmail-ka ayaan tegayaa. waxa uu leeyahay Gmail-ka ayaan kuugu dirnay, Gmail-ka soo gal, kadibna confirm soo dhaw. wuxuu leeyahay time ka socda, ka faa'iideyso inta uu socdo, kadibna soo gal. Gmail-ka ayaan gelaynaa. waxaad aragtaa in 3 fariimood ay nooga soo dhaceen Pocket Option markii aan isdiiwaangelinay iyo welcome kusoo dhawow shirkadda ah, iyo kaas sare ayaan tegaynaa email validation ay ku qoran tahay. kadib
waa arkaysaan halkan yar ayaan leenahay confirm hadda soo dhaweeyo waa arkaysaan confirm emailka ayaan xaqiijinaya si toos ah wuxuu u tegayaa website-kii. waa arkaysaan halkaas iminka waxaan kaga gudubnay gmailkii verified ayuu noqday. marka xaggan waxaan gelinayaa lambarkayga, lambarka ayaad gelinaysaa, marka lambarka doonto ayaad gashan kartaa, isaga waxba kooda laguguma soo dirayo. marka aad lambarka geliso tig ayaad saaraysaa, tigtaasaa u saaraysaa. halkan kale waxaad gelinaysaa date of marka datekan waa inaad buuxiso. dad baa jira intaanay datekiiba iyagoon buuxin. dateka waxaad ku qoraysaa dateka ku qoran kaarkaaga ama passaportka kugu qoran, kaas ayaad gelinaysaa. marka dateka ayaan soo buuxin doonaa, waan iska dhaafi doonaa. kadib markaan dateka buuxino, xaggan hoose ay ku qoran tahay before uploading the document please fill in this information in your profile date of halkan ay kasoo bixi doontaa, taas ayaan gelin doonaa, iyadana waan sii sharixi doonaa. dateki markaan soo buuxiyey isna tig ayaan saarayaa. marka datekaas isna saas ayaan ugu guuleystay. oo arkaysaan halkan sidee ayaan faylka uga soo saari karnaa si ay noogu soo baxdo. waxaana laga rabaa marka ugu horeysa countryga aan joogno ama wadanka passaportka laga bixiyey. marka anigu hadda Soomaali ayaan sitaa, passport Soomaali ID card kaas ayaan gelinayaa. marka Soomaaliya ayaan sheegaya locationka, marka Soomaaliyana confirm ayaan leeyahay xaqiijinayaa. marka xaqiijiyo halkan yar ayaa wareegaysa, kadibna waxaa kasoo baxaya phone. foonka ayaa noo soo baxay. marka Mareykanka iyo wadamada miyaad joogtaa baa lagu yiri, another day wadamo kale ayaan joogaa, continue ayaad si leedahay. marka afartan shuruudood ayaa laga rabaa. waa inaad sidato ID card, passport, license iyo driver iyo permit kaas ku meel gaarka. marka anigu hadda ID card ayaan sitaa, marka ID card ayaan tag leeyahay, kadibna next ayaan si leeyahay. halkan waa arkaysaan waxa kasoo baxday kamaradii. marka uploading ayaan leeyahay, halka hoose uploading ayaan iska leeyahay, kadibna halkan ayaan documentka gelinaya. halkan waxa lagu leeyahay kaarka waraaqdaas saa ugu sawir, kadibna kaarku hareeraha ka goyn, screenshot ha ka soo qaadin, waxaasoo kale lama ogola. dhinaca ayaana u durkin, dhinaca centerka iska yaalo. waxa doonta ayaa iska dul dhigan kartaa waraaq weyn baad ku sawiraysaa. kadib markaad sawirto isla sida aad u sawirtay baad soo gelinaysaa adigoon waxba ka jarin. kaliya waa inuu bartanka yaalo, waraaqdu dhinac walba waa inay ka muuqan kartaa, waa inay weynaan kartaa. marka halkan yar ayaad ku dhufanaya uploading. marka waan soo upload garaynaya halka moolka kaga jiro. oo arkaysaan kaarkayga halka ka muuqda. marka kaarkaas ayaan kusoo dhufan upload garaynaya, waadigan arkaya waan qarin doonaa. marka kaarkaygu saas ahaanaya waad arkaysaan. marka iska dul dhigtay sawirka, marka aan iska sawirtay, kadibna sida aan u sawiray intaa sawirka ma qarin doonaa. kadib marka next ayaad leedahay. kadib markii next tiraado wuxuu ku leeyahay diyaar ma u tahay selfie. marka qofka haddii uu passaportka aanu isagu lahayn, qof kale hawla tago sawirkan si loogu qaado. halkaas dad badan baa soo weydiinayay. marka qofku wuu heli karaa passport ama ID card aanu isagu lahayn, laakiin selfigan ayaa sheegaya inaad adigu leedahay oo aad kii runta aad tahay. marka selfiga adiga ayaa laga qabaa. marka hadda selfigan ayaan gelaya, waa sawir kura sidaas u jeedsanaysa, saa u jeedsanayo waa in laymankaasi sidaa markii ay buuxsanaan kuwa wareegaya. iminka I am ready ma tahay, marka diyaar baanahay. qaybta waan iska xidhayaa selfigan, laakiin ha noqdo passaportka aad gelisa qof kale. kaliya uma baahna passport waxa loo baahan yahay selfigan ayaa muhiima. marka qofka waa inaad la tagto halka uu joogo, kadibna uu selfigan yar aad kasoo qaadato haddii uu passport kuu soo diray ama ID card kuu soo diray ama license kuu soo diray. marka iminka I am ready ayaan leeyahay. sawirkii layga qaaday documentkii laga dhammaystiray oo ka sawirkii waa layga qaaday, kadib ID cardkii. marka waxaan si leeyahay next markaan idhaahdo saddexdaas ayuu tig saarayaa, kadibna wuxuu soo dhigi doonaa congratulations saas ayaad ugu guuleysatay. ka laba tig saaray, iminka xabadaas saadhay, kadib saas ayuu kuugu dhammaystirayaa. waa intaa yar marka aad dhammaystirto. haddaba marka aad koonkii soo verification garayso, waxaad u baahan tahay inaad lacag ku shubato akoonkii. marka akoonkii halkan ayaad ku dhufanaysaa profilekaaga, kadibna waxaad tegaysaa halkan ay ku qoran tahay finance. kadib finance-ka ayaad kasii tegaysaa deposit halka ay ku qoran tahay. withdrawna waa markaad lacag la baxayso, historyna waa lacagihii aad soo dhigatay iyo lacagaha la baxday ayaad ka eeganaysaa.
cashbackna waa marka aad cashback ama promo code aad isticmaasho lacagta cashback ay ku soo gasha khasaariha aad gashay ayaad halkan kala baxaysaa. Marka hadda deposit ayaan tegaynaa. Deposit markaan tagno waxaynu soo eeganaynaa applicationada ama loo isticmaali karo. Marka anigu hadda waxaan u isticmaalaa Perfect Money, adiguna ka ugu fudud ee aad u isticmaali kartaa waa Perfect Money. Tron iyo Binance iyo kuwa hadda isticmaashana waad ka soo dhigan kartaa. Waxa kale oo aad ka soo dhigan kartaa lacagta Tronadaasi dayn waxaan waa cryptadii oo dhameystiran. Marka haddii aad Binance leedahay iyo KuCoin haddii aad leedahayba waad ka soo dhigan kartaa. Marka Perfect Money ayaa lagaaga baahan yahay inaad soo samaysato. Marka Perfect Money-ga ayaad ku dhufanaysaa, kadib saas ayaad u dhiganaysaa lacagtii $100. marka promo code-na waa isticmaali kartaa. I have promo code-kaasna waa kuu sheegi doonaa marka aan lacagta ku shubanayno. Hadda waxaan laga rabaa inaan Perfect Money samaysano. Marka Perfect Money ayaan soo samaysanana. marka uu qofku doonayo inuu Pocket Option lacag soo dhigto bay ula yaabaya qofku inuu Pocket Option lacagtiisa ugu jirta sim card-ka uu soo dhigto. Sim card-ku nooc doona oo ahaadee waxaa jira application kuu sahlaya in lacagta ku dhigaan sariflayaal Soomaaliya. Marka hadda sariflayaasha aan anigu isticmaalo waxaa kamid ah Tufaax Exchange ayaa kamid ah, application-kaas ayaa kamid ah. Waxa kale oo kamid ah Edir app ayaa isaguna kamid ah oo ka ugu wanaagsan aan isticmaalo. Marka hadda anigu kan ayaan isticmaalaa, waxaan leeyahay Open. marka ay dhahdo san u soo kacaya marka shaashada adigu soo dhologarayso adigoo isticmaalaya Play Store iyo Android ba labadaba aad isticmaalaysaa ama App Store ba aad isticmaalaysaa. Marka Soomaali hadii ku yahay Soomaali baad ka dhiganaysaa, hadda English doonaysaa English baad ka dhiganaysaa. Marka aad doonaysaa hadaba inaad samaysato halkan aad leedahay sign up. Marka halkan waxaad gelinaysaa lambarkaaga, kadib markaad buuxiso verification sign ayaa lagugu soo diray, lambarkaaga waad gelinaysaa, kadibna code-kii lagugu soo diray waxa intaa kadibna aad samaysanaysaa lambarkaaga ayaad ku galaysaa iyo password. Marka password ayaad u samaysanaysaa. Hadda marka imarkayga ayaan gelayaa. marka phone-kan ayaa ku soo baxay. Phone-kan markuu ku soo baxo halkan waa home-kii oo home-kan, halkan waa transaction-nada aad dhaca. Marka adiga wax lagaaga baahan yahay add halkan add ay ku qoran tahay aad soo buuxiso. Marka halka kood dahabtaada ayaad gelinaysaa, hadii dahab leedahay, hadii kale M-Pesa aad leedahay. xagan kalena waxaad soo gelinaysaa Premier Wallet-kaaga lambarka ugu samaysan. halkan EVC sahal sad cheap dhammaan lambaradaas ayaad gelinaysaa. halkana Perfect Money-ga ayaad soo gelinaysaa. aan ku sheegi doono qaabka loo sameeyo isagana iyo qaabka lambarkan looga soo qorto oo inta yar code-kan. halkana Binance-taada linkigeeda ayaad soo gashanaysaa. marka hadda aniga intaas ayaan buuxiyay. marka safe ayaad leedahay. marka hadaba aad doonaysaa inaad lacag dhigato Perfect Money oo Perfect Money-ga aad lacag doonaysaa inaad dhigato, halkaas sare ayaad leedahay, halkan hoose ayaad leedahay dahab ka dhig. xagana waxaad ka dhigaysaa Telesom sad, xagana waxaad ka dhigaysaa hadana Perfect Money ayaad ka dhigaysaa, ama kolba wixii aad ku dhiganaysaa ayaad ka dhiganaysaa. marka Premier Wallet hadii aad lacag u dirayso oo kale saas ayaad leedahay, sidaad iga soo saara kolba kii ay lacag ugu jirto lagaaga soo saarayo ka lagu dhigayna xagga hoose ayaad dhigaysaa. marka confirm ayaad leedahay, lacagta aad dhigaysaa Perfect Money aad geyn kartaa waxay noqon kartaa $6. marka $6 ayaad dhiganaysaa, saas ayaad ku oranaysaa. kadibna marka lacagta waxay ku tagaysaa Perfect Money. application-kaas intaas ayaan kaga baxayaa. application-ka labaad ee aad u baahan tahay waa Perfect Money. Perfect Money waxa uu ku sahlayaa inaad lacag dhigato, lacagna aad kala soo baxdo. Perfect Money kaagama baahna inaad verification ku samayso. lacagtaada waxa aad gaarsiin kartaa $100, $200, laakiin ilaa $1,000 meelaha waxa ilaa lacag $1,000 gaaraysa aan baana loo ogolayn inaad dhigato. laakiin lacagta wax ka yar intaa waad ka saaran kartaa, waanaad kala bixi kartaa. marka application-kan Open haddaan idhaahdo hadda waxaa ku jira koodhkaygii hore. marka adiga aad cusub tahay sign up markaad tiraahdo halkan phone-kan ayaad buuxinaysaa, magacaaga koowaad ayaad ku qoranaysaa, halkan name baad ku qoranaysaa oo saddexan, xagan city magaalada aad degan tahay address yar oo aad samaysatay. marka phone-kan qaabka loo buuxinayo muuqaalkan daawo, kadib saas ayaan ku dhaafayaa. aad buuxsato waxaanan aad kuugu dardaarayaa inaad samaysato Gmail aad hubto
oo aad garanayso passwordkiisa oo kugu jira mobilkaaga. Passwordkana marka aad halkan gelinayso waa inaad hubiso oo aad saxato ama meel aad ku qorato. Kadibna kabshaha yar lambarkan aad halkan geliso. Kadibna waxaa lagu soo dirayaa koodhkaas waa number ID-gan halkan oo kale ayaa lagugu soo dirayaa Gmail-ka. Kaas ayaad soo qoranaysaa kadibna ka ayaad ku galaysaa. Kan waa lagu galayaa marka aad ku gasho kadib waxaad gelinaysaa kabshahan yar ayaad gelinaysaa. Imika haddii aan geliyo kadib kabshahan marka aan geliyo wuxuu gudaha ayuu ii gelin doonaa wuxuuna i tusi doonaa akoonkayga lacagta ii taala. Marka imika kan markaan galo passwordkiisana waa kan halkan uu qarsoon yahay. Marka adiga lambarkan ayaa Gmail-ka lagugu soo dirayaa. Kan waxaa ku qoran member ID ayaa la yiraahdaa. Member ID waa ka lagu galayo maaha ka lacagta lagu dirayo iyo ka lacagta meel lagaga saaranayo. Marka dadku way isku qaldaan. Marka member ID-gan waa ka lagu galayo waad ilaashanaysaa. Kana waa passwordkaaga. Laakiin waa inaad markasta passwordkaaga aad garanayso. Member ID-ga markasta waxaad ka helaysaa isaga Gmail-ka. Marka haddii aan geliyo wuxuu leeyahay markasta please your email ayaan kuugu dirnay pin code. Markasta Gmail-kaaga ayaa pin code lagu diray. Haddaad lacag la baxayso, haddaad lacag gelinayso, pin-kaaga wuu shaqaynayaa markasta. Marka Gmail-kaagu waa inuu ahaado Gmail mobilka kugu jira oo shaqaynaya marka aad ku samaysanayso Perfect Money-ga. Marka pin-kii ayaan kasoo qortay Gmail-ka waad arkaysaan. Marka confirm baan leeyahay wuxuu gudaha inoo geyn doonaa shaashadeena oo ah akoonkeena lacagta inoogu jirto. Oo arkaysaan akoonkan ayaad soo qoranaysaa U35954336 kaasi ayuu waxa loo soo gaabiyey lacagtaasi waa USDT ayaa loo soo gaabiyey. U-daas marka laba akoon oo USDT saddex buuba iga noqday. Marka uu ka noqon karaa laakiin mid kaliya ayaad isticmaali kartaa. marmarka qaar 4 bay noqon karaan laakiin adiga ka ay hadii lacag ugu jirta waxay lacagtii ugu jirtay $37.87 ayaa igu jira. halkana wuxuu iga tusay lacagii aan kala baxay dhaqdhaqaaqyadeydii lacagii isoo galay lacagii aan la baxay minus kuwa waxaan la baxay $50 lacagahaas oo dhan ayaan la baxay $13 lacagahaas waa lacagii aan la baxay. haddii aan kugu celiyo lambarkan ayaad qoraysaa. lambarkan markaa qorto waxaa gelinaysaa ay dirtaadi lambarkan aad arkayso U35 ayaad halkan soo gelinaysaa. waa kan lambarkan waa isku fiiri waa isku lambar. marka lambarkaas ayaad gelinaysaa. sidaad arkaysid labada lambar waa isku fiirin doontaa. labada lambar waa isku mid saad arkayso kii hore iyo kanba waa isku mid. markaas saas ayaad soo qoranaysaa. lambarkaas waa inuu halka kugu jira. kaasina wuxuu sheegayaa waa ka lacagta marka aad ka saaranayso kana laga saaraya weey Perfect Money-ga lacagiga soo saar hadana marka ku raado lambarkaas ayuu Perfect Money-ga imka lacagiga soo saaraya xaga sare Perfect Money-ga giyo lambarkan ayuu lacagta ka soo saaraya. marka lacagta igu jirtay oo ahay 330 ayaan gelinaya intaas la igu soo saaraya sidaadida isla markaaba la dhex keenay waa markaan doonayo lacagan kala baxo. marka haddaan sidaadida lacag igu jirtay halkan sare ayaan sidaada marinaya imkii dahab taas ay lacag igu jirtaa marka $330 wax la igu geenaya sidaadida waa la ii kala bedelaya. marka ama Premier Wallet-kayga ay la ii geenaya intaas waa kala bedel from waa laga qaadayo tuna waa la geenayo. marka intaas aad ayaad u fahantaa wayna fududahay. sidee ayaan Pocket Option lacag u dhigan karnaa ama lacag u shuban karnaa inagoo isticmaalna Perfect Money. haddaba haddii aad aqoon Perfect Money sida loo sameeyo daawo muuqaalkan si aad u ogaato sida loo samaysto. marka ugu horeyn waxaan geli doonaa Perfect Money-geena inagoo eegana lacagta inoogu jirta. hadda lacagta inoogu jirta Perfect Money waa $6 marka $5 oo kamid ah ayaanu dhigan doonaa Pocket Option-keena. application-kan Pocket Option marna waa website marna waxaad ku isticmaali kartaa isagoo application ha mobilkaaga. marka isaga ayaad ku dhufanaysaa Pocket Option-keena qaybta real-ga wax lacag inoogu jirto waa ever. marka haddaba waxaan doonaynaa inaan lacag kusoo shubano Pocket Option oo la trade gareynayo lacagta aad soo dhigato ayaa trade gareynaysa mar walba inta aad dhigato adiga oo helaya inteeda. marka uu suuqu jiro inaad ka faa'iideysato fursad suuqa adigoo marna u galaya asal marna buy u galaya. marka haddaba waxaynu doonaynaa inaynu lacag soo dhigano waxaynu tagnaa profile-kan. kadib profile-ka markaan tagno waxaynu kasii galaynaa Finance markaan tagno waxaynu ku dhufanaynaa deposit ayaan leenahay si aynu lacag soo dhigano. kadib dhammaan waxaa noo soo baxaya akoonadan ugu horeeya Perfect Money. haddaba inagu waxaynu dooranaa Perfect Money Trust Wallet waad kusoo dhigan kartaa Tron baad kusoo dhigan kartaa
Binance waad ku dhigan kartaa watan marka Payeer waad ku dhigan kartaa dhammaan ilaa Mastercard-kaaga waad kusoo dhigan kartaa xaggan hoose ayuu ku jiraa Mastercard-kaagii waa kan Mastercard waad kusoo dhigan kartaa Visa card waad kusoo dhigan kartaa dhammaan xawaaladahaas oo dhan baad kusoo dhiganaysaa marka anagu waxaan doonaynaa iminka inay Perfect Money lacag kasoo dhigano marka Perfect Money-ga ayaynu ku dhufanaynaa halkan $100 ay ku qoran tahay ayaynu ka tiraynaa kadib waxaynu ku qoraynaa $5 kadib $5 markaan ku qorno continue buy ayaanu leenahay kadib foomkan ayaa inoo soo baxaya kaasoo cadaynaya inaad Perfect Money-gaas lacag u dirayso macnaha Perfect Money-gan ayaa lacag loo diraya isaguna wuu kusoo dhex dhigayaa pocket option-ka ayuu ku xiran yahay marka halkan ayaad leedahay make payment xaggan waxaad soo gelinaysaa number ID-ga aad ku gasho Perfect Money-ga iyo password-kiisa iyo numberkan halkan ku qoran ayaad ku buuxinaysaa marka inaguna hadda waan soo buuxinaynaa kadib markaaynu buuxino waxaaynu leenahay private payment marka intaas waan israacinaya maadaama uu lambarku yaasir idima tusayo kadib markaan intaa gelgelino waxaa inoo soo baxaya koodhkaasoo inalagu dirayo gmail-kii aan Perfect Money-ga ku samaysanay wuxuu kuleeyahay please check hubi your email-kaaga lagu diray pin code marka ay ku qoran tahay ayaad soo qoranaysaa kadib halkan ayaad gelinaysaa marka aynu soo qaadano waxaynu leenahay continue kadib waxaynu sii leenahay lacagteena $5.09 ayaa laga jarayaa kadib confirm ayaan leenahay confirm ayaan u diraynaa marka lacagteena inoogu jirtay waxay $6.32 confirm payment ayaan leenahay kadib halkan waxaan sii leenahay continue macnaha calaamadan wuxuu sheegaya in laga dirayo pocket option loo dirayo lacagtaas $5 continue ayaan sii leenahay wakaas hadda waxaad arkaysaa $5 ayaa noogu jiraan akoonkii saas ayaa fudud ayaad lacag usoo dhiganaysaa hadhow markaad lacagta la baxayso wax laga rabaa inaad gaadhsiiso halkan $10 sidee ayaa lacagta loogala baxaa pocket option marka aad doonayso haddaba inaad pocket option lacag kala baxdo hadda waxaa igu jira $22 iyo 20 senti $22 iyo 20 senti marka waxaan tegayaa profile-kayga markaan ku dhufto waxaan tegayaa halkan ay ku qoran tahay finance markaan kusii dhufto waxaan tegayaa withdraw marka aan idhaahdo wuxuu leeyahay lacagta ugu yar ee lala bixi karaa waa $10 aniga marka hadda waxaa igu jira $22 iyo 20 senti waxaan doonayaa inaan la baxo lacag 10 aniga kula baxay Perfect Money xaggan waxaan gelinayaa $10 ayaan doonayaa inaan la baxo kadib waxaan sii leeyahay continue marka halkan waxaa la gelinayaa waxaa la gelinayaa Perfect Money-ga gudaha lambarkan waa kii aan kusoo dhigtay lacagta markii aad u fiirsatay marka markasta wuu iigu jirayaa waayo lacagta aan kusoo dhigtay awgeed ayaa loo diiwaangeliyey inaan hadhowna lacagta aan kula bixi karo kulba akoonka aan kusoo dhigto lacagta haddii uu Payeer yahay kaas ayaa la ii diiwaangelinayaa marka iminka waxaan la bixi doonaa $10 annagoo sii odhanay continue wuxuuna leeyahay lacagtaas waa lagu dirayaa oo lagu soo dirayaa receive fund with few business day lacagtan waxaad ka eegan doontaa un Perfect Money-gaaga marka lacagta hadda way baxday halka waxaa igu jiray $10 sidaa awgeed markay lacagtiina soo gaadho waxaan eegi doonaa bal Perfect Money-geena inayna soo gaadhay sida aragtaan lacagtii weli nama soo gaadhin waxaa noogu jira $1 iyo 20 senti waxaan eegi doonaa markayna soo gaadho weli wuxuu leeyahay lacagtaadii waa la eegayaa inay binding ayay ku jirtaa marka lacagtu hadda ay dhammaato binding-kaasi kadib ayaa naloo soo dirayaa lacagta marka ay lacagtiina soo gaadho halka new ay ku qoran tahay complete ayay noqon doontaa markasta lacagtaas oo kale ayay noqon doontaa marka waan eegnaa in lacagtiina soo gaadho weli Perfect Money-ga may soo gaadhin hal saac kadib saa arkaysaan lacagtii wayna soo gaadhay $10 withdraw complete ayuu yidhi marka waxaan hadda soo eegi doonaa Perfect Money-geena inay lacagtaasi kusoo dhacday sida wada arkaysaan waxaana soo gaadhay $10 lacagtaas $10 oo aan wax fee ama promotion aan laga goosanayn Perfect Money-geena waxaa ku jira $11
hadda waxaan doonaynaa inaan lacagtaan kala sii baxno 12ka perfect money-ga haddaba marka aad perfect money doonaysa lacag inaad kala baxdo, hadda ani perfect money waxaa igu jira $3.60 iyo 8.70 senti ayaa igu jira. marka waxaan isticmaalaya applicationkii Edir ayaan isticmaali doonaa. marka waxaan ka saari doonaa kugu tusi doonaa $10 inaan ka saarto. marka $10 ayaan kugu tusi doonaa. halkan waxaad leedahay perfect money ka dhig, xagana waxaad ka gelinaysaa halkana waxaad gelinaysaa $10 ayaad gelinaysaa, kadib $10 $11 geli 10 iyo 6.50 ayaana soo gaaraya. marka form baa la buuxbuuxinaya. formka marka aad buuxbuuxiso halkan ayaad leedahay confirm, formkan ayaa kuu soo baxaya. formkan ayaad buuxbuuxinaysaa, waxaad halkan gelinaysaa number ID-ga aad ku gasho iyo passwordka iyo numberkan yar ee xaggan ku qoran ayaad gelinaysaa. lacagtaas $12 waa naloo soo dirayaa, process bay ku jirtaa. guntiga gabagabadii videogan wax badan ayaad ka faa'iiday. haddii aad muuqaalka halkan soo gaadhay, muuqaalka like saar si asxaab badan gaadho. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.